الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. سو دواada Soomaaliyeey marba meelo boodboodo soo dhawaada. Soomaaliyeey jahwareeray soo dhawaada. Soomaaliyeey qabiilistiyaal qabyaalad isku haysta soo dhawaada. Soomaaliyeey beenta diinta ka dhigtay soo dhawaada. Soomaaliyeey maxay qabiilada isku haysta soo dhawaada. Soomaaliyeey jihada ka dhunsantahay soo dhawaada. وايد السلام سودا وادا بري سودا وادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa maanta dhowr qodobood inaan kala hadlo. dalka Soomaaliya meesha ku sii socdo. dalka Soomaaliya cawaaqib xumada ku soo socota. dalka Soomaaliya in la isku qabsan doono dal Soomaaliya ma jiri jirtay iyo ma jiri jirtay mise ma jirtay in la isku qabsado in dadka shaki ka gasho. Soomaaliya waa wareersan tihiin waana marin habaabsan tihiin. Xasan Sheekh baa waalan iyo xasan Sheekh baa qof yiri asaga ilaaj buu u baahan yahay waa waalan yihiin dad waalan waaye iyo maxay ahayd riwaayadan hubka laga soo qoranayo Azerbaijan iyo riwaayadan maxay ahayd loo dhigahayo maxay ahayd Ethiopia la salsalaaxanayo iyo maxay Africa Unit baa loo doortay nin Ismaaciil Cumar Geelle u shaqeyn jiray iyo daarood buu ka soo jeedaa iyo ninka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle wasiirka arrimaha dibadda uu ahaan jiray Ismaaciil Cumar Geelle u shaqeeya daarood buu ahaan jiray Canfarta iyo Africa Unit baa loo doortay iyo maxay ahayd safiirka wareegaya Turkiga wareegaya gobolada wareegaya dalka Soomaaliya waxay Turkiga ka damacsan tahay maxay ahayd Ethiopia waa nacabnahay waana jecelnahay badeeni iyo dhulkeeni waana siinayna waana salsalaaxayna Ethiopia iyo amxaaradana waa nacabnahay baan rabaa inaan kala qaybsado. Soomaaliya horta waa idin salaamay waa walaashin idin Cabdullaahi Farmaajo hadal kale idin kuma badinaayo. horta ninka Africa Unit ee Ethiopia isugu tagtay la leeyahay waxa loo doortay rejiimka Ismaaciil Cumar Geelle ninkii Canfarta ahaa ee sibood gareynaya Daesh ee sibood gareynaya ICIC sibood gareynaya ee argagixisada baasaboorka siinahayay ee Daesh hubka u geynahayay ee markabka Jabuuti gacanta ka saarahayay official kula soo istaagay Mareykanka annaga Daesh muslim bay nala tahay maxay ahaayeen xuutiyiinta muslim bay nala tahay badeena baabal maqdam bay saaran tahay waxaan ka qaban karna male annaga Jabuuti official ula soo istaagay inuu yiraahdo xuutiyiinta la jira oo Ismaaciil Cumar Geelle u shaqeeyo rejiimkiisa. arrinta ka dhacday Ethiopia ee Africa Unit ka dhacday meeshaas إن الله أنتي corruption هاد أفريقيا corruption كاي شعب كذا خيام هاي أفريقيان كخيام هاي بيانت العقد كتوق سنة هاي عالم كي يدون كي دولة ده النات يا أمريكا العقد وقادن هاي يسوي من جيبوتي أرنتاس كذا على ماشي نكا وحلو صار يلا عقد لو صار يسيد يوحد جيران قدال بعد كلا قيب صندونا وحيالا بدن بانوجا يعني نكان Canfarta rejiimka Ismaaciil Cumar Geelle wax Africa Unit lagu soo saaray Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu u soo saartay Xasan Sheekh wuxuu u daba cararahayo Xasan Sheekh wuxuu u raadinahay inuu afduub ku qabsado magaalada Muqdisho oo magaca Soomaali uu rabo dadka inuu been ugu sheego gaalada iyo adduunka iyo caalamka uu lacagtooda shacabkii oo baahan uu magaca Soomaaliyeed rabo inuu dadka ku baabi'iyo magaca Soomaaliyeed calanka Soomaaliya adduunka ku wasaqeeyo ku ceebeeyo oo dambiisha tuugsiga uu ku wato uu raba inuu ku soo noqdo
ujeedada ka dambaysa iyo ninka cafarta ujeedada loo soo saaray iyo Africa Unit Afrikaanka waxa laga damacsan yahay iyo Africa Unit meesha ku dambeyn doonto iyo lacagaha lagu soo saaray ninka la isdhaafsaday iyo naagta ku xigto Algeria ku xigto oo laga dhigay Africa Unit ku xigeenka waxay ku soo baxday iyo madaxweynihii Algeria oo yimid lacagtu ku bixiyay Faransiis lacagtu ku bixiyay lacagaha la isdhaafsanayo ninka sababta lagu soo saaray sababta kursiga loo soo saaray lacagta ku baxday qarashka cadadkeeda Ismaaciil Cumar Geelle ujeedadu ninkan kursiga u soo saartay waxa arintan ka dambeeya Faransiiska ka dambeeya lacagta ku bixiyay kulli waa gadaal baa idin kala qaybsanaya arrimo badan baan ogaanay waa idin la qaybsanayaan inta lacag ku baxdayna waa idin la qaybsanaya madaxweynaha Algeria wuxuu u cararay uu Jabuuti uga cararay Ethiopia markuu intuu yimid Ethiopia uu sawirradii diiday in la galo uu uga cararay Ethiopia diyaaradiis ugu noqdayna waa idin la qaybsan doona insha Allah bismillah kariim arrimo badan baa la socdaani waa idin la socdaa Ismaaciil Cumar Geelle maxay Geelle ma soo noqonayo cid dooratay ma jirto xoog buuna ku haystaa Jabuuti ninka Daesh iyo IC iyo argagixisada iyo xuutiyiinta iyo bayriska kuwa maraakiibta afduubta Soomaaliya galiyay ee lacagta Mareykanka foojiriga ku sameeya ee dalka geeska Afrika inaysan degin raba ee haddana Ethiopia dagaalada ka soo wada ما قرأت دجالة إثيوبيا كسر عصبنا سنة كسر وضع جاز كأفريقيا السجية فرنسيس نكوي شيئين كرسي نوقف فني بقرطاية إنه سكدجين يا إنه سكدجين أيال اللي يركيكو حاجة أو وزير كيس أرماد دي بدأ أفريقيا يوند لا دورت أهي دارت ملا إسماعيل عمر قال على أساقع اسكو على شوبي أساقع أبهيتين أفرتني 6 سنة ماشي فردية أساقع يادير كيسا اسكو بدلي شعبكي أساقع لاين هيا شعبكي تروموكو كراعة هيا ريالكي عنفر بابيي نكان وشقين هيو عنفركا هاي ورالو وغن نقضي إن تدكيسي لقو ماذا أو دالك حقوقي سي لغا درو أو جبوتي لغا حسوقو أو لغا نظيفية جبوتي أو حقوق هذا اللي قلته نند أقولادي نبرك أوديكتي إنه إسماعيل عمر قال الضميركي كتجي هات بني آدم نمدي كتجي هاتين ده كان أساقو مسؤولك كي هاي أما أساقو كسو جيدو لغو أكحا سوق هاي أرون تنكس إنو أفريكا يونو وجهك لك كين هاي أرون تنكس dadka ku fakarahaya ama anfarta ku fakaraysa ama reer Jabuutiga ku fakarahaya ama Soomaalida ku fakaraysa ninka Ismaaciil Cumar Geelle soo maxay barbaarsaday ee gumaysiga Ismaaciil Cumar Geelle dhabarka u dhigtay ee ka ogolaaday dadku asay ka soo jeedo in lagu aqxasuuqo xuquuqdoodii loo diido oo dalka laga talxiilo oo noloshii loo diido oo sharci loo diido oo dagaal loo diido oo taraama lagu shurusheeyo dadka ka sugahaya كدتكيسيو لليناي دبرك u sugto Ismaaciil Cumar Geelle shaqaale wahay booy u aha inuu geeska Afrika wax u qabto inuu Jabuuti maxaateena wax u qabto inuu Afar wax u qabto inuu maxaate meel ka soo baxo inuu ragnimadiisa meel la soo istaago inuu Ismaaciil Cumar Geelle la challenge gareeyo inuu dalka Soomaaliya wax u qabto inuu Afrika oo dhan wax u qabto I don't think kama sugahay arkaas nin walba gurigiisa reerkiisa lagu arka nin gurigiisa wasaqaysan yahay guri kale ma nadiifin karo horta taa karta Soomaaliya taa karta way maqashaan Sooma horta taas karta talaba ku haysta gabar baad ku haysataan hees baad noo soo qaaday am xaaraan nagu sheegtay am xaaraan nooga fiican baad tiraahdeen Ethiopia iyo xamar war shacabka reer Banaadir hadaad ugu dagaalamaysaan oo amxaaro aad u necabtihiin oo Ethiopian u necabtihiin oo calankiina u jeceshiin buruga oo gabar wiil in ka soo shukaansaday oo idinka ah ee xamar keensaday ee dumaashidiina aad ka soo sarakiciseen maxay ahayd xamar ka soo saarteen حسن علوسو محاد وبنان بحويدين سومين أركين إنو أبي سلسلاحة هاي
soomiidin arkaynin inuu hoosta uga jiray soomiidin arkaynin inuu turkiga heshiis kula dhigtay soomiidin arkaynin baddiin iyo dhulkiin inuu siiyey soomiidin arkeen beentuu shalay idiin sheegay Itoobiya nacabnahay dhulkeenni bay qaaday baddeenni bay ku darsanaysaa Itoobiya nacabnahay intuu shalay idinku bannaan bixiyey oo shalay asagiyo fiqi bannaan idiin soo saareen oo lacag idiin qaybiyeen oo soo bannaan baxdeen haddaad Itoobiyaan go'aan ka gaarteen oo gabdhihii maxay hateen aad idiin dhaxday aad ku eersanaysaan oo xamar ka soo saaraysaan oo qabyaaladda saa ugu xoog weyn tihiin ya xasan culus ma ku bannaan baxdaan baddiinii dhulkiinii degaankiinii dalkii Soomaaliya ayuu iibinayaa ayuu abbi hoosta forseel ku siiyey ayuu abbi Itoobiya ku salsalahayay ayuu abbi ku sujuudahayay ayuu abbi turkiga ugu tegahayay ayuu Itoobiya ku laalaabanahayay asagoo been idiin sheegay Itoobiya nacabnahay Itoobiya rabin Itoobiya ma jecelin cadawga Soomaaliya weey haddaabad saas reer Maraadirow reer magaalada Muqdisho reer Xamarow reerka xamarka degan ma sida ugu bannaan baxdaa ninka baddiinii iyo dhulkiinii Itoobiya siinayo abbi dhunkanayo abbi salaaxanaya maxaad ugu bannaan bixi weydeen maxaad u soo istaag weydeen maxaa idinka calankiina wata ugu soo istaag weydeen baddeenna iib maahan dhulkeenna iib maahan shalay been baa noo sheegtay shalay waana soo bannaankaa noo soo saarteen adinkiyo fiqi waxaad tirahdeen Itoobiya cadawgeena weeye Itoobiya waa nacabnahay Itoobiya ma rabno Itoobiya dhul bay naga haysataa Itoobiya dagaal baan la galnay Itoobiya isma arki karno Itoobiya way naxasuuqday Itoobiya xamar bay noogu timid ayuu wali xamar intuu ugu tegay maashi la dhahay xam ugu tegay Addis Ababa ayuu salaaxahayay abbi ayuu abbi hoos ugu foorarsanahayay ayuu abbi gacmaha ka dhunkanahayay ayuu baddiinni siinahaya qaaradiinni Soomaaliya Itoobiya goosanaysa Itoobiya isku qortay inay badda iyo barrigaba Soomaaliya ay leedahay ilaa iyo galmudug ilaa iyo galcad qaaradii iyada saaratay Itoobiya qaaradeedii bay goosatay ma garatay ma ku bannaan baxdaan hadday daacad idinka tahay war Soomaaliya qabyaaladda iska daay war Soomaaliya cuqdiga iska daay war Soomaaliya intaad is-eersanaysaan oo qabiil isku eersanaysaan oo gabar idiin dhaxday oo wiil idiin keenay ku eersanaysaan oo hees bay noo soo qaaday xasan culus iyo fiqi ma aragtaan miya kan xuno maxay ahayd argagixisada la shaqaysta master tibto ma aragtaan miya midkaan maxaa leeyahay cali balcad la leeyahay baasaboorka Mareykanka wata ee jaajuuska Itoobiya bata u siixay ma aragtaan miya oo xasan culus gabadhiisa ma aragtaan miya ya ma aragtaan miya war Soomaaliya maxaa idinka qaldan war shacabki Banaadir maxaa idinka qaldan war shacabki Xamarow maxaa idinka qaldan war qabyaalada dalka Soomaaliya gacanta way uga baxaysaa yaarad isku haysataan intaad gabar yar ee xidid idiin ah ee wiil idinka soo guursaday ee idin keenay ku haysataan reerka reer Somaliland ee Soomaalinimada diidan ee qadiyada calanka Soomaaliyeed diidan markaad ku haysataan Itoobiya jeceshihiin orama raacdeen lafta naga raacdeen ninkii la taagnaa lafta naga soo fiqi ma hayn master tibto midka gaashaan ninka loo dhiibay soo ma hayn lafta naga ninka la taagnaa Itoobiya war ilaahay ma ka baqdaan war xaq ma fiirisaan war reer Banaadir haddaad Itoobiya maxaara waa jecelnahay waana soo dhawaysanaynaa waana dhunkanaynaa waana saraaxaynaa ragii amxaarada shalayto annaga maxay lacagta noo qaybi ee banaanbaxa noo sameeyay ee beenta idiin sheegay baa lafta kanaa maxay la suuran Addis Ababa xasan culus oo Addis Ababa tagay salsalaaxanaya abbi iyo gabar kale tina kala salsalaaxanay marka war ilaahay ma ka baqdaan war magaalada Muqdisho war haddaad hawiye tihiin iyo haddaad Soomaali tihiin iyo haddaad daarood tihiin iyo haddaad isaaq tihiin iyo haddaad qabiil kasta tihiin war Soomaalinimada ha idinka goodo war ninka maxay hayteen wadanigaan ahayn oo dalkiina iibinaya iska qabta war ku bannaan baxa war u istaaga ninka wadankiina burburinaya markaasuu intuu idinku soo noqday wuxuu ku leeyahay dad baa waalan dad baa u baahan meesha waalida in la geeyo ilaajka in la geeyo
maxay tahay psychology in la geeyo dad baa u baahan mental health in la geeyo maxay hayta qof iyo cod baa la dooranaya asoo badini dhiibay asoo dhulkiini dhiibay asoo lafta naga ay la sawir yihiin ninka lee fiqi والله بالله تلا أنا أفكر عن تأي تاجن ويا برها شال فقه ويسكني قايلين أم حارض النعب نين إثيوبيان كالنعب نين أورمض النعب نين إثيوبيا النعب شعب كامل لو بينجور هيا أنا قبيل بالله يسوق كين تشيدين هيا دلكين إلا ديبال الربع dalkiina in la dhiibaa la rabaa annagiina waa qabiil baabarka waxa la rabaa qabiilka inta isugu jeedno in laga dhex faa'iideysto in dalka la iibsado in dalka la xaraashto in dalka la dhiibo in dalka la saxiixo annagana been baan loo sheegay Itoobiya nacabnahay ee reer koonfur Itoobiya jecel yihiin waa wacalo hal ugu aarsado am xaaraday hoos ka galeen waa khayr waa khaain wadan annagiina kii xamar idin joogayna ee qabiilka idin la wadaagayna ee xasan culusowaha ee 10 qof 100 qof ee maalinba nooca maalinba kalara maalinba been idin sheegaya war ma ka baxdaan riwaayada ku jirtaan dalkiina maad ilaashataan baddiina iyo barigiina ma ilaashataan ninka khaain wadanka dalkiisa wareejinaya maad iska qabataan oo ku banaan baxdaan markaad gabar ku banaan baxaysaan marka gabar iyo wiil isu wata ku banaan baxaysaan ma xasan culusow iyo fiqi iyo midka maxay Mr. Tiptop ee gaashaan dhig haysta iyo cali balcad iyo maxay nimankan maad xildhibaanada ku banaan baxdaan khaain wadaniinta xamar jooga ma ku banaan baxdaan ma dalkiina iyo dhulkiina u istaagtaan am xaaradii shalay idin leeynaysa Itoobiya ay kugu timin xamar ee xamar shacabka ku xasuuqaysay ayuu dhulkiini iyo badiini siin haya xasan culusow dhiigiini ku baxay oo dad idinkaga dhinteen oo dad idinkaga qaxeen oo dad qaar dhaawac yihiin oo dad handicap yihiin oo dad sariir wali u saaran yihiin oo dhibaatadii lii geystay marka gabar iyo wiil aad ugu xiniye badan tihiin oo fanaaniin idinka isku ahaysataan reer hebel baanu nahay abgaal baanu nahay habar gidir baynu nahay annaga xamar u talina annaga xamar hogaamina wadani baanu nahay amxaaran jecelnahay Itoobiya salaxanayna lafta naga la sawiranahay aad sababaan joognaa waa qoslaynaa annagana gabar iyo wiil baan ka dabalaadnaa qabiil baa isku haysanaa magaalada Muqdisho habtaad geesiyaal tihiin gabar walaashiina oo gabar Soomaaliyeed oo waxay tahayba ha ahaato heeska waa loo soo dhiibay nin baa u soo dhiibay gabadhan dadka la qaadaya kamid tahay nin walbana calooshiisa jeebkiisa u shaqaysanaya nin walbana waa baahan yahay markaad ku dhageysaan oo diraca uga dhageysaan oo ku banaan baxaysaan oo caayaysaan oo qabiilada isugu dhagantihiin oo qabiilada isku caayaysaan oo qabiilada isku haysataan xasan culusow Itoobiya abi ku salsalahaya maaragtaan miya lafta naga oo fiqi iyo kii maxay Tiptopka ahay gaashaan ninka joogayo asagana siiha dhagdhe ku haya maaragtaan miya cali balcad maaragtaan miya xildhibaanadaas okolaaday in Itoobiya badda la siiyo dhulka Soomaaliya la siiyo ma aragtaan miya marka qabiil baad xuniye buurantihiin idinka idin taala marka أنا ربع يدي شيء ذلك الصومالية ولا كلا قايمين قايمنا إثيوبيا قاعدة قايمنا كينيا قاعدة أنت سايس كويستان وما أنت من دا صدر يسدح سنة عن دولة الآن ونحي أو UN بانا أفريكا يونت بانا محيط قالوا محيط أدون كنا لا تشدي إنا أنك عرب تسار إنه أنا قبيلة يسكو هاي سنة يا oo annagi qabiilay wali isku dhaganahay oo wali bislaanin oo qaxootinahay oo badi ku dhamaanay oo dhulkeeni baabay oo qaraxyadna laysay oo argagixisyaal adduunka dhan laga soo ururiyay oo dhulkeeni bahalagaleen noqdeen baad wali qabiil isku haysataan wali miidin kala dhargin wali tuuga idin haysata wali tuuga baan idin sheegaysa tuuga dadka idin ku diraysa tuuga darisaanta wadamada dariska idin ku diraysa ee soo shaqo taga iyaga hoosta kala heshiisa ما قرأت هداد ودنيين تين رير حمراو رير مقالة مقدشو رير النقوة إسكالهاو وحاوية كوبنا بحسن عرسو يا موريان تاني يمحيت كوح اللي معنا إذينا يا موريان تاو وطوي توغا فقي كوك
كيا نك إلنكا خاينكا ودنك خاي ودنكا الرواية إدين دقهاي مركو قاهرة تقاي بنت إدين شيقهاي إساكين دقهاي إنو حسن كليا بدا بحيي إساكين دقهاي وانك لفت النقال لا صورنا ويستاغ رير النقاو اسكالهاو رير النقاو اسكالهاو حمر النقاو اسكاله أبقالان نهاي أبرقدران نهاي أمروصدان نهاي أرهبلان نهاي النقاو اسكاله انتا كوهيسان هداد ودنيين تهين شعب كرير مقالة مقدشو شعب كرير صوماليات شعب كباشي هوية شيغانية مقالة مقدشو شيغانية ودنيين هداد تهين ودلكين يدلكين أو دون حيسان وداعات إذا كتا إتوبي إنا نعبتهين حسن علوسو اسكدلو هذا حسن علوسو يحل ديبانada iyo rag la shaqeysta iyo tuugada la shaqeysata ee agafka idin marisay ee homelesska iga dhigtay ee qaxootiga idin ka dhigtay ee xafiisadii idin ka rartay ee qabriyada qodan haya oo waxaysan cafineen jirin ee argagixisada la shaqeysta ee al-shabaabka la shaqeysta oo idin laynahaya ee qaraxa idin keenahaya ee nolosha idin haynin ee canshuurta idin ka qaadanaya ee guryaha idin ka barakiciyay ee guryaha agaf idin ka galiyay waxa weeye uu istaaga ku banaabaxa marka waa idin qiraaya wadaniyin inaadtiin marka waa idin qiraaya calankaas inaad jeceshiin oo ilaashanaysiin waa idin qiraaya calanka inaad jeceshiin waa idin qiraaya calanka inaad jeceshiin waa idin qiraaya may maqlaysaan calanka inaad jeceshiin waa idin qiraaya wadaniyiinta dalka Soomaaliya inaad idinka tihiin ka weynaada gabar iyo nin is wata inaad candadiisa ku dhigtaan ka weynaada ma gartay Soomaalida waxa weeye maxay ahayd meel kasta way isku imaan kartaa way isku soo martin kartaa wiil iyo gabar way isjeclaan karaan way israaci karaan meeshii rabaan ka digi karaan waxa weeye ka weynaada inaad gabar dirceeda ku dhigtaan ka daba laalaadaan ka weynaada inaad qabiil isku haysataan ka weynaada u dagaalama calanka beegart calanka u dagaalama calanka garabkayga isaaran u dagaalama markaas ay idin ogaanaya wadaniin inaad tihiin markaas ay idin ogaanaya inaad wadaniin tihiin inaad dad ficil tihiin inaad dad dalkooda jecel tihiin inaad dad meel dheer ka hadlahaya ay daacad idinka tahay amxaarada inaad necab tihiin markaas ay idin ogaanaya laakiin inta gabar iyo wiil is wata candhooda ka daba dhagan tihiin ya ninkii badda saxiixayay ee dalka bixinayay ee cabbi salaaxayay ee lafta nagaa la taagnaa ya waxa weeye xaq maahan Somaliland Ethiopia jecesha yes way jecesha Ethiopia yes idin kale waa jeceshin Ethiopia yes haddii idin jeclayn waxaad ka dhigin kartaan xasan culus oo ka dhigin kartaan haddii idin jeclayn waa ina xasan culus oo ka dhigin haddii kale Somaliland ilaa ya koonfur galbeed ilaa ya magaalada muqdisho ilaa ya maxayteen Puntland ilaa ya galmudug amxaarada waa jeceshin Ethiopia waa jeceshin raali baad ka tiin dalkiina in Ethiopia la wareegto Kenya تاسايد كو قريا رير مقالة مقدشو إذن كان اللي قد يا استاغا كعب دلك بدبادية قبل هذا كلنا وين كود يانيان وين سو استاغيان لكن إذن كهبتات إذا ستان أو إذن كقبيل سكواي ستان أو جبر كذب لالادان أو ويل جبر وتكذب لالاتان أو هاس وحاس أو فرح ما سكواي ستان النوع حمر إسكمريه أنا أكو مامولا أنا قشن كأديك أورسا أنا جواكو هجامية النوع إسكاله هبدا شيء حمر هو يضايق كل الله والنواع إسكاله أكو هيسان وحوايب هبدا ودنيين تهين أم حارن نعبتهين داعات إذن كتهاي برنامبحا قبدا عادكو سميسين قبدا عسكسو عيريسين قبدا عادكو كعدين أم حارن نعبكين كتاقيها وإنا حاسكو كعدان وإنا بدينا يدركين وإستاكتان إتوبيين قادم وإنا